kuwa markii maanta interviewgii su'aaltan ka jawaabiyay hada arinta magaalada saay ka taagan Puntland ayaa la tiwsgareeyay hortaan waxa uu idin sheegaya oo ogtihiin aanu tacabkan geliyay magaalada saay inay Soomaaliya shacbigeedu midoobaan cid gelisay ma jirto ilaa dagaalkii sokeeyo oo ogeeyeen roolkan ka qaatay taariikhda inkastoo dadkeenu xasuus lahayn sidii ay magaalada saay deegaankaas amba ahaata SSE amba ahaata khaatumo in arrintooda la galo oo dadka la mideeyo tacabkan geliya cid gelisoo reer Soomaaliya ma jirto qof kasta oo magtaqaanay deegaanka ka yimaada ee magaalada saay muraad oo ka yeesha oo soo bixi arina anaga ii yimaadaan Ilaahay iguna oo igu astura ma hortaan nin qabiil yahay dan qabiil hay maalintii dagaalkii sokeeyay aabaha iyo raaci lahaa iyo dadka abtirsimada ahaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala aniga bahasha qabyaalada Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma laga qalad moodaaba alxamdulillah rabbil alamin waana ka ducaysta laakiin waxaan ka adsan karaa xaq darrada wixii jira waan sheegaa Soomaaliya runta ma sheegto waxaan sheegay waxa weeye Axmed Karaash waxa halka geeyay ma ahayn nasteexo oo hayo magaalada dadkiisa ee waxaan wax uslaa Soomaaliyeed ku xumee oo dad deegaanka dadka wada degan magaalada saay Sool iyo Sanaag wada degan ee Afrika waxa qaybiyay magaalada saay adduunka qaybiyay wadamada super power-ka ay xuduud la sameeyay lama bedeli karo AU-da charterka AU-da ahd qarameedka AU-da lagu cadeeyay in la ilaaliyo xuduudihii isticmaalkii ayuun buqas in hal geliyo oo dadka waddankiisa Soomaaliya Itaaliya wada landka ka dhigo kale inuu kala qayb qaatay inuu land ka dhigo waxaan hubaa inaanu dad qaar inaga la joogay iyo oo ma shakhsiyaad siyaasiyiin iyo Axmed Karaash Puntland oo ma jeedaan Soomaaliya oo ma jeedaan ninka farmaajo xamar ku temporary-ga ayuu jeedaa oo maanta inta buuqle ninkii yimid dawladda Kenya waxa soo diray farmaajo waxa la kaashaday Axmed Karaash ma hoo taasan sheegay inuu kala sameeysan markay noqoto arintan anaga daw ogtiin waxaan u jecelahay in beesha magaalada ka soo jeedaan baashiyo beel magac leh sharaf leh beel minority loo sheega maaha beelaha waaweyn ee reer Soomaaliland ay ka mid tahay marka la sheegayo waxaan jecelahay inay saamigooda Soomaaliya ka qaataan ana isxambaar noqon taasaan aniga isku haysanaa raggan magacaabay ku jira baarlamaanka ee beesha ka soo jeeday hortaagan doorashada waxay diidayaan in dadkaas saamigooda qaataan oo Sool 60kii baa lagu socdaa Sool hadda 60kii lagu dhifto inta la had 12 wax yeelanaysaa kursi yeelanaysaa qaybteedii in xaqooda qaataan oo foodka ka qayb galaan oo ila madaxweynaha sida riyaalaba u noqday uu furan tahay oo wadakooda ay iimaansadaan man kaadaya intaan isku hayna daanaga baarlamaanku la saddexan inuu sheegine aniga qodobada baarlamaanku waxaan isku haynaa war doorasho dalkan ka dhacdo war sharci ma tiidin sharcigu 5 sano sheegaya 5 sano dhamaad 15 sano dhamaysanaysa ilaahay ka boqoyo shacbiga doorasho sii daay oo dhulka aan doorasho ka dhicin diiwaangelinta tagto inta sano isku hayna marka ayaan halkayga la tuskareeyo siyaasad tago cadaw badan to qaar baa jecel inay laakiin sharaf bareerkaas inaga mudan yihiin way ogyihiin waan isnaqaana waa ka cali waa ka magaalada saay xagleetoosiyo khaatuma si wada hadaladii halkan ka maray waa la ogyahay aniga reer kale soo ma ka dir karo marka dadku hadda waxay dhahaan cida galiyo dhulbaanta waa dhul iyo ciid bay yiraahdo waa isku dhaqan baabaanahay marka sharaf bay igna mudan yihiin intaas oo masaxayay waan mahadsantiin TV-yadan iyo mahadsantiin anigu waxay ku soo talagelinaan in mataqaana qabiila waxaan in Soomaaliya sharaf yeelato oo walaalnimadii ehelkii aan ku koray markaan jaamacada ku jiray iskuulka dadka igu badan ee saaxiibka ahay reelaas aanadii reer Booramahay waxa la sameyn jiray students committee la sameyn jiray dadka foodka ay siin jiray badnaa arda gud arda reer Booramahay ahay reer walaalaan nahay dad badan magaalada saay reer marka waxaan cudurkan waa cudurkii Soomaaliya qaadisay dhibaatada in gaarsiisay kamid tahay inaynu
maanta reer isku sheegno aan reer igu soo kala tagelinaga cadaalad igu soo talagalay wanaag ayaa igu soo talagalaysaan. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.